السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي سلامينا دمان أصحابته كحيران جنالة ديجران ميدي يسدو كله كافية. سوين بدي سلامينا بنتكوم هتعلينا دمان إن سومالوين تا إنه وحيران. أنت كلو أنا وحرنينا وحنولنا هاي ونسود ويننا جمع فرن إيه قلبي ونكسن. نقول صبير أيالين هاي عدي نقول عصب مركزي سبسكرايب كسر قبل الكيركان كيلوين سي هبين كادو جفتت أو سو كعد مكي واحدة سوق اليوتيوب كاسبة واتهاي إن طبعا برنامج عصب عن بلاب دونا لبدأ استوديو إن دقيقة ميدي كافية كلاس عندهم إنسان برنامج كسو حالها إلى تري مرحلة را تلوين كقصوين كادو رم بعد نص بدي كرتان هذا تاي نكا يجعلك هذا تا مرحلة كلاو كويستو طبعا برشة الصوماليات أكو حرن جنالة دينا أيام مركز كلا تلين دونو إن طبعا جيميل كابنوغو سو دير دونتانا إن هوسبال إنكو سو قوري دونا أدينكو كومنتيغانا ونوغو ريبي كرتان قف كستا قصديسا قف كدو رالي كين مجيسا والله قرين دونا بلسه maanta qisa ayaan idin wada qisadaasi waxay ku dhacday gabar la yiraahdo Sahro waxay joogtaa qayb kamid ah markaasi gobolada Soomaaliya balse gobol ahaan in la sheego ayay diiday waa tahay gabadhaasi waxa ay tiri waxaan isjeclaanay tiri wiil markaas yaraanta isku jeclaanay sida gabadha hadalkeeda ay ku soo qortay muddo 5 sano ah ayaan wada soconay tiri aad u badan 5 sano soo maha waxa dhigi karnaa jaceelkaasi inuu miro dhal noqdo bay fiicnaan lahayd balse waayahay gabadhaasi waxay tiri iskuul kasta dhigin jirnay dhahday dugsiga hoose dhexe ilaa iyo sare dhahday marka maya dhexe isku soo gaareen hoose way yareerayeen Soomaha marka dugsiga dhexe ilaa kan sare isla dhameeyeen jaceelkoodina caadi buu sii socdaa طبعا قبل هذا الكلام سكسو قرتي إن درس بيهاين إن كسكول كنا وصل لجين جرين سلاس بو جعل كود يكون بلامي كده بيحة تري سكندري بكرة دمينا تري ودكسي السرقة مركانو دمينا إنكي وحقو أنصدق تري إن وتهريبو بنا وحن هاي إنكي وتهريبي بتري مرة لما كو تهريبي آدي فمل كيسة أقوم رجودين وايو فمل كمركو صن إهان فمل تاجرة دي أبد كيسة بوجو الولاية وايو وحكف كريا بري ما كون مجفق بصدق عنه وجاسي صدق وكسو دين لها ما دام آدي وقالتها وصنا وحنتي أنا هي سنين كدب واردك وحي هاين بتريد إسكا فقيرة مسا مركا عن وحنتي هي سنين بهاين آد أقول ولين بتري عنو جي مركو تهريبي مجفق قبصدي إذا عادي يقولوا يقانيبا مجفي مكو قبصدي طبعا العقد بدنا وعدة إيسن أودين أيوصو ضربضي بس هاي أبا وبير واحد علي آد بأودالين باص يرى لهاين يقول ير أمريكاسي bay u gadeen inta kalena aabihi baa qayl dhaamiyo waa waray yiri oo magaalada ku kacay oo qabiilkii iyo dadkii markaa yiri wiilkeygii baa iga xiran ahli ii soo daayo gabadhu waxay tiri aad iyo aad baan uga murugooday bay tiri waayo Soomaalidan diim marka dargantaa bay ku jecel yihiin mar hadaad waxiisan kuma jeclaa marka aabihi ay tiri oo bulshada dhex maray waa waray yiri oo lacag loo aruuriyay sharaf xumada halka aabaha ka soo gaartay waalidka baa aad ugu xumaaday betri way waxay noqotay wax odaygii iyo hooyadii aabihi lagu jaifeesto oo la dhaho odaygan maalin kastaba bacbu la ordaya oo marka dhanka toksiga buu u badnaaday dee inuu aabo wax togsadana marka waa qasab maadaama ubadkiisi la heesto waa tahay canugu marka waxay tiri ninka isaga ah mas'uuliyad iskama uusan saarin waalidkiisa dhibka uu mari doonana kama uusan fikirin oo dhalinyarnimo qaaday balse aniga waxay tiri aad iyo aad baan u jeclaa oo xiriirkanaga jecel iyo qisooyinkanaga markaan niyada ku hayabo aad baan uga murugoodaa bay tiri dhanka kana gurgul waxa iga furnaa bay tiri sida waalidiintan uu u galayo kadib wixii dhacayba inankii waa la sii daayay magafihii baa laga sii daayay oo toos Sweden ayuu u socday oo toos u galaa waxa dhibka keenay ayaa waxa ay tahay in xushmad badan ma lahan bay tiri waayo waardiintii dhalay ayuu markaasi xushmeen waayay bay tiri aniga marka had iyo habeenba waxa aan ka fikiraa ayay tiri oo isaga hadda sida hadalka ay ku soo sheegtay xiriirka si toos ah uguma uusan jarin balse wali wala wada saas ay tahay waxa ay tiri ma aha bay tiri qof baar waaridkiisa ama waaridkiisa ka amar qaata ama xagga ixtiraamka waaridka uu ku badan yahay ma aha bay tiri marka waxaan ka fikirayaa bay tiri isaga hadda sida isku soo hadal qaadnay waxa uu doonayaa bay tiri in mustaqbal aan yeelano aadi aad waa araq culus baan leenahay oo markii la yiraahdo xagga iyo mustaqbalka dii ma aha wax lagu degdega waa tahay marka waxay tiri inantii wuxuu doonayaa bay tiri aan doonina marka in isguursano isaga oo marka igu caga jugleynaya tiri oo iraahay meanaha hadaadan hadda guurkayga diyaar u ahayn ma sii wada socon karno dii waa saxo
waxa uu wata ayaa markaa ka weyn baan oran karnaa sidaa markuu igu cabjiday ana mustaqbalka waxaan ka fakarayaa batire in waalidkii hooyadii iyo aabihii xurmeen waayay waayo markii hadalka wixii ku soo dartay markii magafaha laga sii daayay hooyo soo noqo baa la yiri hooyadii baa muddo dhan xeetir kooma ugu jirtay si ay u soo celin lahayd inankeeda oo u bariyeysay oo ka diiday tiri waayahay waan buu ogolaanay tiri aataga Sweden mar la markuu tagay ay tiri xiriirkii aniga iska daayay waalidka kan kala dhaxeeyay inkee ma uusan wanaajinin bay tiri marka aniga waxaan hadalka gunaanadkiisa ayaa ah meesha aniga aan ka fakarayay waxa weeye tiri nin hooyadii aabihii xurmeen waayay oo marka waalid ahaan ugu aqoonsan waayay dhanka iyo caasinimadana u badan sidee ani mustaqbal oo la yeelanaya waaye mise ma dhaqi karaani oo maanta hadaan guursado nolol ma la wadaagi karaa nin sidaasi ah bay tiri oo marka ceebtii fadeexadii uu waalidkiisa ku dhigay amardiidadii aniga aan goobjoog ka ahaa balse ruuxaas ma noqon karaa ruux aniga igu sii waarayo oo aan muddo markaasi aan xiriir la sii sameyn karo taladu waxaan leenahay Soomaali weyn waa gacantiina ay ku jirtaa wixii tala ay tusaalaha gabadhaasi u haysan Sahro waxaan leenahay aad bad u mahadsan tahay sida aad noola soo wadaagtay qisooyinkaada anagu ahaan tala ahaan hadda kuma siin karna balse bulshada ayaan u bandhigaynaa bulshadaas adinkana waxaan arkaynaa ra'yiga iyo go'aanka aad soo goysaan gabadhaasi aad kula talisaan qaybta commentiga hoose ayaa Digiran Media iyo Kaafiya aad ku soo qoraysaan labadaas YouTube aad kala soconaysaan hoos aad noogu soo qoraysaan wixii tusaale ah dabcan gabadhaas way soo gali doontaa YouTube-ka way akhrisan doontaa fikradihiina wanaagsan markaasi qaabka aad kula talisaan waayahay intaasi markaan gabadha qisadeeda uga imaado aad bad u mahadsantiin daawashadiina balse waxaana markaasi idinka codsanaynaa inaad nala soo wadaagtaan qisooyinkiina ku xeeran haday tahay jaceelka haday tahay qisooyin kale oo dhanka jaceelka bis loo badin karo qisooyin kale ayaa qofka bilaadanka soo wajihi kara markaasi taladaada u soo bandhigi Soomaalida hadii magacaada la xusayeen magacaada aad nagu soo daraysaa hadii aan xuseenina magacaada waad inaga reebi anaga ayaa ku qarin doona waxaad nagala soo xiriiri kartaan oo fariimihiina nagu soo diri kartaan gmail-ka hoos link ugu soo qori doono marka inta ayaanu idinku gabagabeynayna barnaamijkanagi ila tali barnaamijkan oo noqon doona mid toddobaad walba aan ku soo qaadano talooyinka wanaagsan markaasi ay soo weydiiyaan bulshada ku xiran Digiran Media iyo sidoo kale Kaafiya aad baa idin salaameena hadaad nagu cusub tahay nagu soo biir soo dhawow qalbi wanaagsan subscribe dheh share dheh like saar lana wadaag asxaabtaada aadka aad u jeceshahay waa tahay daawadayaal intii hore noogu xiran aad baan idinkaga mahad celinaynaa daawashadiina qiimaha badan aad baa idin salaameena